Ma ogtahay in erayga ugu horeeya ee Qur'aanka lagu bilaabay uu yahay Iqra oo macnaheedu yahay akhri? Haddana maanta ummadii lagu amray inay akhriyaan ayaa noqotay mid adduunka inteeda kale aqoonta uga hormartay. Cutubkan labaad ee taxanaha miraha akhriska waxaan ku baran doonaa sababta uu u dhacay isbeddelkaas, maxaynu ka baran karnaa, iyo sida aan dib ugu soo ceshan karno hankii iyo himiladii ay ummadeen horey u lahayd. Haddaba ha dhaafin daqiiqad kaliya, waayo waxa aad maqlayso waa fariin dhab ahaantii isbeddel noloshaada ku keeni karta. Muslimiintu waa ummadii akhriska. Aayaddii ugu horeysay ee Qur'aanka waxay ku bilaabatay amar ah akhri. Bal eeg daawade, Eebbe markuu doonay inuu nolosha bedelo, wuxuu ku bilaabay akhris. Taasi waxay ina tusaysaa in horumarka bani'aadamku uu ka bilaabmo faham iyo waxbarasho. Taariikhda Islaamka markaan dib u milaysano waxaan aragnaa in dowladihii muslimiintu ay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee dhiirigeliyay wax akhriska iyo qorista. Maktabadihii Ciraaq iyo Andalus waxay ahaayeen halkii laga baran jiray aqoonta adduunka. Waxaa xusid mudan in maktabadihii faraaciintii hore ay albaabkooda ku qoreen oraahyo caan ah oo odhanaysa halkani waa quudka nafta iyo daawada caqliga. Bal fiiri daawada, waxay taasi ka dhigan tahay in akhrisku yahay sida cuntada oo kale. Waa wax nafta iyo maskaxda u baahan si ay u noolaadaan. Laakiin maanta xaalku ma sidaas buu weli yahay? Qoraagu wuxuu leeyahay xaaladda maanta ay muslimiintu ku sugan yihiin waxay sabab u tahay hoos u dhaca wax akhriska. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sidee reer galbeedku ku horumareen? Jawaabta waa mid fudud. Waxay naga qaateen dhaqankii akhriska, waxayna u beddeleen ficil joogto ah. Cilmi baaris ay samaysay UNESCO sanadkii 2000 ayaa muujisay in qofka Arbeed celcelis ahaan uu wax akhriyo 6 daqiiqo sanadkii oo keliya. Bal halkan fiiri, waddamada Carabta 350,000 oo qof ayaa soo saara hal buug, halka Yurub 10,000 oo qof ay soo saaraan hal buug. Waa farqi aad u weyn daawada. Taas ayaana sababtay in hal dhinac uu noqdo hoggaanka aqoonta, kan kalena uu noqdo raac. Haddaan u soo laabano ummaddeena Soomaaliyeed, taariikh ahaan Soomaalidu waxay ahayd bulsho hadal iyo xalxidhaadhe wax isugu gudbisa. Farta Soomaaliga lafteeda waa mid dhowaan la qoray. Qoraagu wuxuu tilmaamayaa in xitaa ardayda iyo dadka waxbartay aysan si joogta u akhrin buugaag cilmi kororsi ah. Akhriska lagu qiimeeyo bulshooyinka waa mid furan. Akhriska qofku sameeyo isagoo aan khasab looga dhigin, balse uu isagu doorbido inuu aqoon cusub helo. Haddaba marka la eego dhalinyarada maanta, badankoodu waxay waqtigooda ku lumiyaan hurdo, internet, ciyaaro iyo sawir illegal oo aan macno lahayn. Balse haddii dhalinteena aan ku dhiirigelino akhriska, waxaa suurtagala inay iyagu noqdaan kuwii isbeddelka horseedi lahaa, sida kuwii hore ee ummaddan hormariyay. Ugu dambeyn daawadaha sharafta leh, qoraagu wuxuu cutubkan ku soo gunaanadayaa hadal cajiib ah. Ogaansho, xeel dheer iyo dheef aqooneed ma haysano ilaa aan yagleelno bulsho caado ka dhigata wax akhriska. Taasi waa fariinta aan wada qaadanayno, in aan dib u bilowno caadadii akhriska si aan dib ugu helno sharaftii iyo horumarkii ummaddeena. Waa hagaag saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Haddaba si uusan ku dhaafin cutubkeena saddexaad ee buuggeena miraha akhriska, fadlan muuqaalka like noo saar, sidoo kale nagu soo bir. Soo koobista buuggan waxaa gacan weyn ka geystay walaalkay Cabaas Maxamed Idow. Intaynu muuqaalkeena hagaag dib ugu kulmayno, waa anigoo Yuusuf Isxaaq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.